soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ahay Abdifataax Durdur halka aad naga daawanaysaan waa Durdur podcast maanta muuqaalkeeni waxa aan ku falanqeyn doonaa xiriir qarsoodi ah oo dhexmaray Sacuudiga iyo Israa'iil haddaba xiriirkaasi iyo soo dhawaanshahaasi ee Sacuudiga iyo Israa'iil muxuu ka bedeli karaa istiraatiijiyadda iyo saameynta mustaqbalka ee bariga dhexe waxaanu eegi doonaa maxaa ka dambeeya kulankaas yaa dan gaar ah leh yaase halkaasi faa'iido ugu jirta maxaase laga filan karaa haddii aynu eegno Sacuudiga iyo isbedelka siyaasadeed ee bariyahan uu wado ayaa waxa ay noqonaysaa Sacuudi Carabiya muddo dheer waxay ahayd tiir ka mid ah dunida Carabta gaar ahaan taageerada Falastiin marka laga hadlayo laakiin sanadihii u dambeeyay Riyadh waxay qaadatay siyaasad cusub oo ku saleysan danaha qarankeeda amnigeeda iyo waliba horumar dhaqaale oo iyadu ay hiigsanayso mashruuca Vision 2030 Sacuudigu wuxuu ku riixayaa inuu helo xasilooni goboleed inuu yareeyo colaadaha iyo inuu ballaariyo xiriirka caalamka intiisa kale uu la leeyahay marka wasiirka difaaca ee dalkaasi Sacuudiga la kulmo ururo Yahuud ah macnaheedu waa in Sacuudigu uu danaynayo inuu ka baxo qaabkii hore oo ku saleysnaa kaliya mabda una guuro siyaasad ku dhisan dano iyo waliba badbaado Sacuudigu wuxuu markaasi hiigsanayaa in gabi ahaanba 2030 markii la gaaro siyaasadiisii wax badan uu ka bedelo taas ayaa leeyahay waa ay keentay in uu xiriir qarsoodi ah oo dhumasho ah ama kulamo qarsoodi ah oo la yeesho Israa'iil mid labaad waxa weeyaan doorka ururada Yahuuda ee fadhigoodu yahay Mareykanka waxa uu yahay ururada Yahuuda ee Mareykanka ma ahan kuwa iska caadi ah markii loo fiirsho waxayna saameyn weyn ay ku leeyihiin guud ahaan dalkaasi Mareykanka marka laga hadlayo Congress-ka aqalka cad siyaasadda difaaca Mareykanka iyo waliba xiriirka Israa'iil sidaas darteed kulanka ee Khalid bin Salman wasiirka difaaca ee Sacuudiga iyo ururadaas ee Yahuuda ah wuxuu Sacuudigu siinayaa fursad uu ku helo taageero siyaasadeed oo Mareykanka iyo dunida kale uu kaga helo iyo waliba in uu ku xoojiyo xiriirka Mareykanka uu la leeyahay kuna difaaco danihiisa gobolka bariga dhexe waxaana la dhihi karaa Sacuudigu wuxuu si toos ah u galay qalbiga Washington waxaana xiriirka hadda uu la yeelanayo Israa'iil Sacuudigu uu ka bedeli karaa baa leeyahay in xiriir dhow uu la yeesho Mareykanka taageeran uu ka helo gobolada Mareykanka uu markaasi gacanta ku hayo ama siyaasadooda uu hogaamiyo mid saddexaad waxa weeyaan in albaab u furmay Israa'iil uu noqonayo kulankaasi dhexmaray wasiirka difaaca iyo ururadaasi Yahuuda inkasta oo Sacuudigu uusan wali aqoonsan Israa'iil haddana kulanka wuxuu u ekaa mid diblomaasiyad qarsoon waana tijaabo la doonayo in lagu ogaado sida mustaqbalka uu noqon karo xiriirka Sacuudiga iyo waliba Israa'iil haddii Sacuudigu uu ku biiro jidka dalalka kale ee Carabta sida Imaaraadka iyo Bahrain waxay markaasi bedeli doontaa miisaanka Carabta ee gobolkan ee bariga dhexe saameynta Israa'iil ee bariga dhexe iyo waliba guud ahaan siyaasadda gobolka oo ishaysasho badan ka jirto waxaana Sacuudigu uu noqon karaa markaasi dal Carabeed oo gabi ahaanba siyaasadiisii bedelay haddii uu xiriir dhow la yeesho Israa'iil Sacuudigu waa furaha ugu weyn ee cadeynta ama caadeynta aan iraahdo Carabta iyo Israa'iil Carabta iyo Israa'iil waxaa ka dhex jira dalal Carabeed oo xiriir dhow la yeeshay oo waliba heshiiska Abraham Code ku jira waa Bahrain iyo Imaaraadka Morocco qayb ay ka tahay laakiin Sacuudigu waa miisaan siyaasadeed iyo dhaqaale oo bariga dhexe oo Carabtana ay focal point u tahay haddii Sacuudigu uu ku biiro heshiiska Israa'iil wuxuu noqon doonaa mid gabi ahaanba siyaasadda gobolka bariga dhexe wax badan iska bedela Israa'iilna waxay u noqonaysaa albaab u furmay oo Carabta oo dhankoodii ah qodobka afraad ee kulankaas ee dhexmaray wasiirka difaaca Sacuudiga iyo qolada Yahuuda ah waxay noqon kartaa fariin loo diray Iran
iyo xubno iyada ay taageerto oo Sacuudiga iyo Israa'iil ay u arkaan oo si wada jir ay ugu arkaan cadow ayaa kulankaasi la leeyahay fariin baa loogu diray. mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee kulanka ka dambeeya ayaa waxaa leeyahay waa Iiraan. Sacuudiga iyo Israa'iil labaduba waxay u arkaan Iiraan quwad khatar ku ah gobolka Bariga Dhexe. Iiraan se waxa ay taageertaa Xisbullahda ka dagaalanta Lubnaan, Xuutiyiinta Yemen iyo kooxo kale oo hubeysan oo iyadu ay ku cadaadiso Israa'iil. Haddii Sacuudiga iyo Israa'iil ay isu soo dhawaadaan, waxay abuuri karaan isbahaysi cusub oo ka dhan ah Tehran, taas oo bedeli karta awoodda Bariga Dhexe. Kulankani waa fariin loo diray Iiraan iyo quwadaha kale ee Carbeed ee isbidaya awood, waxaana siyaasadda gobolka Bariga Dhexe uu gabi ahaanba bedeli doonaa haddii xiriirkan uu noqdo mid shacab ama si rasmi ah loogu dhawaaqa. iyadu kama marnaa meesha qadiyadda Falastiin. Markii laga hadlayo xiriir u dhaxeeya dal Islaam ah iyo Israa'iil, markasta waxaa meesha ku jirta oo la xusaa qodobka dalka ama dadweynaha Falastiin. Halkan waa meesha ugu xasaasisan. Dad badan ayaa isweydiinaya, Sacuudigu ma ka leexanayaa Falastiin haddii mar uu Israa'iil xiriir la sameeyo? Macnaheedu dad badan waxay u arki doonaan in Sacuudiga uu ka leexday ama uu baneeyay garabsiintii iyo doodistii xuquuqda Falastiiniyiinta. Haddii Sacuudigu uu xiriir la yeesho Israa'iil isaga oo aan wax damaanad ah u helin Falastiiniyiinta, waxay markaasi dhici kartaa sumcadiisa ee Carbeed oo aad u yaraata, hoos u dhac weyn ka imaada. Kalsoonida dhanka muslimiintana waa ay yaraan doontaa haddii Sacuudiga uusan helin isku dheelitirnaan siyaasadeed oo danaha Falastiiniyiintuna ku ilaalinayo xiriirna uu kula sameysanayo Yahuudda. Sidaa darteed Riyaad waa in ilaalisaa doorkeedii hogaamineed ee dalalka Carabta iyo muslimiinta. Dhanka kalena Riyaad waa inay heshaa siyaasad isku dheelitiran, dano amni, balse aan lagu iloobin walaalaha Falastiiniyiinta. Haddii taa ay dhacdo oo xiriirkaasi dhab noqdo, lana iloobo Falastiiniyiinta oo ay Sacuudigu meesha ka saarto ama ay ka baxdaba garabka Falastiiniyiinta, gabi ahaanba waxaa meesha ka bixi doonta sumcaddii iyo kalsoonidii muslimiinta iyo weliba doorkii hogaamineed ee Sacuudiga uu ku lahaa Carabta, muslimiinta iyo gobolkaba. waa mid lixaad waxa weeyaan saameynta gobolka. Gobolkan ee ishaysiga badan ka jira ee Bariga Dhexe waa gobol mushkiladiisu ay badan tahay, saacad kasta iyo daqiiqad kastana uu wax iska bedela. Haddii xiriir Sacuudiga iyo Israa'iil uu dhasho ama ay xiriir dhow yeeshaan, Bariga Dhexe wuxuu geli doonaa marxalad cusub. Maxay tahay marxaladaasi? Waa isbahaysi cusub oo ka bilaabma gobolka Bariga Dhexe. Qariirada cusub ayaa sameysmi doonta. Nidaamka iyo qariirada hadda Bariga Dhexe iyo xiriirka dalalka sida ay u kala leeyihiin waa isbedeli doontaa. Cadaadis cusub oo dhanka Iiraan ah ayaa la dareemi doonaa. Iiraan hadda waxa ay cadaadis kala kulantaa dalal dhowr ah, iyadoo se mashar yara oo waxa ay taageero siisaa kooxo loo arko in ay yihiin xag jirin. Balse hadda xiriirkan Sacuudiga iyo Israa'iil wuxuu cadaadis ku saari doonaa Iiraan in ay markaasi dareento culeys kaga imaanaya Israa'iil iyo Sacuudiga. Dalal badan ayaa raaci kara jidkaas ama ka hor imaan kara. Taasina waxa ay keeni kartaa khatar siyaasadeed oo cusub oo Bariga Dhexe ku soo kororta. Gabagabadii, kulanka wasiirka difaaca iyo ururada Yahuudda ma ahan dhacdo oo mar uun iska soo booday oo iska timid, balse waa calaamad muujinaysa in Bariga Dhexe isbedel ku socdo dhanka siyaasadda, amniga iyo isbahaysiga. Isbedel weyn uu ku imaaday Bariga Dhexe. Sacuudigu wuxuu doonayaa inuu noqdo quwad hogaamineed isla markaana la jaan qaada siyaasadda caalamiga ah, laakiin jidkaas wuxuu u baahan yahay
xeelad miisaan iyo weliba ka fiirsasho aada u qoto dheer. su-aasha furan waxaa weeyaan sacuudigu ma noqon doonaa buundo nabadeed mise wuxuu galayaa isbahaysi cusub oo muran dhalin kara? haddaba adugu maxaad ka aaminsan tahay arrintan iyo xidhiirkan qarsoodiga ah ee Israa'iil iyo sacuudiga? fikirkaaga inoogu reeb commentiga, like saar muuqaalkan, hanaga iloobin in aad na soo raacdid ama subscribe ay noo saartid channelkeena. aad baad u mahadsan tahay haddii aad horey nala joogtay inoo joog, haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo bir. aragtidan waa inoo muhiim, xagga hoose inoogu reeb. mahadsanid.